السلام عليكم daawadayaal maanta waxaan idin keenay sheeko cabsi leh oo dhab ahaan dadka qaar sheegeen inay la kulmeen sheekadan waxa loogu yeeraa kursiga isbitaalka bal aan aragno waxa qarsoon balse koorta muuqaalka wadaagin waxa ka codsanaya muuqaalka in like noo saarto sidoo kale kanaalkeena subscribe noo dhaado lana wadaagto asxaabtaada kale mahadsanid nin bukaan ah ayaa la dhigay isbitaal weyn qolka uu jiifayna waxa uu lahaa sariir cad iyo kursi weyn oo dhinaciisa yaala habeenkii ugu horeeyay intuu sariirta jiifsaday ayuu arkay qof madow oo ku fadhiya kursiga wuxuu u maleeyay in uu yahay kalkaaliso ama qof qaraabo ah oo soo galay isbitaalka laakiin markuu indhaha kala qaaday subaxdii waa uu waayay qof meeshaasi ku fadhiya yacni kursiga waa uu madhnaa ninkii bukaanka ahaa wuxuu ku adkaystay wax aan caadi ahayn in ay socdaan habeenka labaad marka la gaaray markuu indhaha isku qabtay kursiga haddana qof madow ayaa ku fadhiya qofkaasna wax hadal ah ma uusan dhihin wax dhaqdhaqaaq ahna ma samayn oo keliya wuu daawanayay subaxdii kursiga haddana sidii hore oo kale waa uu madhnaa yacni qofna ma uusan ku fadhin bukaankii uu ka shakiyey waxa uu arkayo markaas ayuu kalkaalisadii weydiiyey maxay tahay sababta kursiga mar waliba qof ugu fadhiisto habeenkii kalkaalisadii oo wejigeedu cabsi ka muuqato ayaa si hoose ugu tiri qof kasta oo sariirtan jiifa haddana arka qof kursigaas ku fadhiya qofkaasi subaxdii ma soo toos ninkii bukaanka ahaa wuu gariiray wuxuuna ka baqay in xigashada kursiga ay macno ka dhigan tahay in noloshiisa ay dhammaanayso habeenkii xigay ayuu si xoog leh indhihiisa u kala hayay isagoo ka baqaya in qofkaasi soo muuqdo laakiin mar uun ayuu hurdagalay markuu indhaha furayna wuxuu arkay kursigii oo aan marnaba madhnayn yacnii waxaa ku fadhiyey qofkii madowga ahaa wuxuuna si toosa u soo eegayey isla nin habeenkaasi bukaankana subaxdii ma uusan soo toos ugu dambayn tan iyo markaas dadka shaqaalaha isbitaalka ah waxay ka digaan kursigaas marnaba inaan lagu fadhiisan laakiin su'aashu ayaa waxay tahay yaa dhab ahaantii fadhiya habeen kasta kursigaasi ma ruux dhintaybaa mise waa calaamadda geeri hal su'aal oo keliya ayaa soo hartay haddii adiga lagu ogolaado inaad kursigaas ku fadhiisato ma ku dhiiran lahayd